السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان غيارتا سو دواada mar kale barnaamij kale iyo Kista TV maalinku waa Axad waa 5 Oktoobar 2025 barnaamijkeena maanta insha Allah tacaala waxaan ku qaadaa dhigi doonaa jaamacadda Puntland State University oo guul weyn ka soo hoyisay tartan ay ka qayb gashay haddii aad nagu cusub tahay subscribe to channel haddaa hor noola joogtay like and share the video aan ku bilaabaya jaamacadda Puntland State University oo saldhigeedu uu yahay magaalada Boosaaso ayaa iyadu waxa ay ka qayb gashay tartan loo qabtay 6 jaamacadood oo ku yaala dalka Soomaaliya 6 jaamacadood ayaa waxa ay kulli baraan ama ay leeyihiin waaxda barashada shuruucda iyo lawyernimada Puntland State University faculty-geeda barashada xagga shuruucda ayaa waxa uga qayb galay 3 arday 2 wiil iyo 1 gabar ardaydan ayaa waxa ay tartanka ay ka qayb galeen ka soo hoyiyeen guusha ah inay ka gasho jaamacadda Puntland State University kaalinta koowaad tartankii la qabtay tartankan waxaa qabtay hay'adda caalamiga ah ee ICRC iyada oo uga gol lahayd in ay Soomaaliya u soo baxaan ama u soo baxdo hal jaamacad oo uga qayb gasha tartanka weyn oo bisha November lagu qaban doono magaalada Nairobi ICRC ayaa iyadu waxa ay sheegtay in ardaydan guusha ka gaartay tartanka la geyn doono magaalada Nairobi waxa la waxa qarasha iyo program oo ku baxayana iyaga ay qabaan si ardaydan ay uga qayb galaan tartankaas 16 dal jaamacadaha ugu heerka sareeya Afrika ay ka galayaan kuwaas oo qaybta faculty-ga ama looga barashada shuruucda international humanitarian law IHL program baa la yiraahdaa uga qayb gali doonaan 16 kaas wadan so Puntland ayaa markii ugu horeysay jaamacadan ay ku guuleysatay inay noqoto kaalinta koowaad ayna ku matasho dalka Soomaaliya magaalada Nairobi taas oo ka dhigan in ay Puntland State University soo saartay arday heerkoodu uu sareeyo ardayda mid kamid ah oo lagu magacaabo Maxamed Cawad Xuseen ayaa isagu hadlay waxaana uu sheegay inuu Ilaahay uga mahadnaqayo guushaas ay gaareen iyaga oo sida uu sheegay habeena badan u soo jeeday riyadoodina ay u rumowday in maanta oo kale ay soo gaaraan oo guusha number 2 ay ka qaadaan ardaydan marka sidaas la mid ah waxa iyagana la hadlay nin kamid ah dadkii moderate grainaya ama dhexdhexaadinayay oo kala dooranayay dadka soo bandhigay arrinka ay ku qanceen oo sida fiican wax u soo bandhigay oo la yiraahdo Alexander Formisano oo isagu ah ninka madaxda ka ah hay'adda ICRC-da programka ee Soomaaliya dhanba ka leedahay ayaa isagana waxa uu sheegay in ay garab taagan yihiin ayna u sacbin doonaan hadduu Ilaahay idmo in Puntland State University ay ku guuleysato All Africa Finals sababtoo ah wuxuu yiri hididiila ayaa nooga muuqday ardaydan aad iyo aad bay u diyaarsanayeen xagga soo diyaarinta sharciga xagga soo bandhigida waxyaabaha cadeymaha ah iyo sida ay u qanciyeen guddigii saddexda ahaa ilaa 5 bay ahaayeen oo ICRC-da ka socday uguna qanciyeen sida ay u soo bandhigeen case-kii ay ka hadlayeen dhanka kale jaamacadda Muqdisho University ayaa waxaa la siiyay wiil ka socday si individual ah si jaamacada ma aha jaamacada waxa ka guuleystay Puntland State University laakiin si individual ama shakhsi ahaan best speaker ama ninkii ugu hadalka fiicnaa oo matalaya jaamacadda university-ga Muqdisho waxa uu noqday Cabdixaafid Maxamed Cali wiilkaas ayaa isaga waxa la siiyay best speaker laakiin waa individual award waa tu gooni u ah isaga oo uu ku soo bandhigay sidii uu wax u soo bandhigay ay aad uga heleen hase yeeshee guushaas waxay soo raacday Puntland State University waxa aad fishaanba waxa waay bisha November insha Allah tacaala jaamacadda PSU in ay ka qayb gasho tartanka ugu dambeeya oo All Africa Finals 16 wadan baa ka qayb galaysa saan idin sheegay waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala oo aan garab taaganahay una sacbin doonaa in ay ku soo guuleysato Puntland State University iyada oo matalaysa dalka Soomaaliya koobka ugu dambeeya oo arki doonaa insha Allah tacaala wixii ka soo baxa isha ayaan ku hayn doonaa haddii aad nagu cusub tahay subscribe to channel hadda hore noola joogtay like and share the video idinka mahad celinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh